بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعن habeen wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij aynu ku eegayno xaaladihii ugu dambeeyay ee bariga dhexe iyo arrimo kale oo caalamka ah qodobadan barnaamijka caawa idinkugu haynana waxaa ka mid ah maxay yihiin rabshadaha dhimashada dhaawaca iyo burburka sababay ee ruxay dalka ugu dadka muslimiinta badan caalamka maxay tahay sababta ka dambeysa bilowga rabshadahan hadda xageebay wax marayaan faahfaahin ku aadan arrimahan ayaan idin haynaa sidoo kale barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa khabiir arrimaha militariga ah oo bixiyay xog xasaasi ah oo la xiriirta ciidamada Israa'iil ee keedka ee looga yeeray dagaalka Gaza inaysan lahayn awood dagaal isla markaana waxa uu digniin u diray abaanduulaha ciidamada Israa'iil Eyal Zamir haddaba maxay tahay digniinta uu u diray sida weyn ee looga hadlayo warbaahinta iyo baraha bulshada xog baan idinkaga haynaa iyana sheekadan sidoo kale caawa barnaamijka waxaan ku eegi doonaa midowga Afrika oo baaq culus u jeediyay dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan muddada ku dhow ee 3 sano xilli dadka Suudaan gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka Darfur ay la kulmayaan musiibooyin waaweyn oo ka dhashay rabab xoogan oo ka dhacay dalka haddaba maxuu daaran yahay baaqan ay direen xubnaha midowga Yurub faahfaahin ayaan idinkaga haynaa iyana arrintan dhammaan macluumaadkan oo faahfaahsanayaan caawa idinkugu soo gudbin doonaa daqiiqadaha barnaamijka hadduu aynu u jaleecno markan sheekada ugu horeysa ee barnaamijka caawa midowga Afrika ayaa baaq culus u jeediyay dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan muddada ku dhow 3 sano midowga Afrika waxa uu ugu baaqay in dhinacyadu ay joojiyaan dagaalka iyo hubka culus ay isku adeegsanayaan isla markaana ay u ogolaadaan gargaarka inuu gaaro dhibanayaasha la kulmay dadadka baaxadda leh ee dhulka sababay dhimashada iyo burburka ee ka dhacay waqooyiga Darfur xaaladan murugada leh gudoomiyaha guddigu waxa uu mar kale muujinayaa midnimada aan leexleexadka lahayn ee midowga Afrika uu la garab taagan yahay dadka ay dhibaatadu saameysay waxaana uu ku baaqayaa in dhammaan dhinacyada Suudaan ay joojiyaan dagaalka oo ay midoobaan si ay u fududeeyaan gaarsiinta degdega ah ee wax ku oolka ah ee gargaarka bini'aadantinimo dadka u baahan ayaa lagu yiri bayaan ay maanta soo saareen midowga Afrika dadadka iyo dhulka baaxadda weyn oo ay sababeen roobabka xoogan ee dalka ka da'ay ayaa dilay in ka badan 1,000 qof kadib markii ay si buuxda ee dhulka ula siibmatay tuulo dhan oo ku taalay buraha galbeedka Darfur ee Suudaan akaalada wararka Suudaan ee Suna ayaa ku warantay in tuulada Tarsin oo ku taala bartamaha buraha Mara ay ku habsatay musiibo bini'aadantinimo kadib markii ay la kulantay dhul burburin u geystay oo sababay inay gabi ahaanba tuuladu ay hoos gasho dhulka buraha Mara waa buuro xiriirsan oo silsilada ah isla markaana ah buuro falkaana leh dhirirkooduna uu dhan yahay ilaa 160 kilomitir ayaa ka xiga koonfur galbeed magaalada Al-Fashir taasi oo dhawaanahan ahayd xarunta dagaal ee u dhaxeeya ciidanka Suudaan iyo sidoo kale kuwa RSF jabhadda xoreynta Suudaan ee SLM magaceeda loo yaqaano uu hogaamiye Cabdulwaaxid Maxamed Nuur taasi oo ka mid ah jabhadaha hubeysan ee ugu waaweyn ee Darfur ee dagaalka kula jira dowladda ayaa gacanta ku haysa qaar ka mid ah meelaha bartamaha ee gobolka Darfur halkaasi oo RSF-na ay ku xoogan tahay musiibadan ka dhacday tuulada Tarsin waxay ku soo beegantay iyadoo shacabka Suudaan ay horey ula ildarnaayeen dagaalka u dhaxeeya ciidanka Suudaan iyo kuwa RSF tan iyo bartamihii bishii Abriil ee sanadkii 2023 inta la og yahay dagaalkaasi waxa uu sababay dhimashada in ka badan 20,000 oo qof iyo barakaca ku dhawaad 15 milyan oo qof halka cilmi baaris ay sameeyeen jaamacadda Mareykan ahna ay ku qiyaaseen dhimashada dagaalkan inay dhan tahay ilaa 130,000 oo qof waa tahay markan aynu u gudubno sheekada kale ee barnaamijka khabiir arrimaha militariga ayaa waxa uu bixiyay xog xasaasi ah oo la xiriirta ciidamada Israa'iil ee keedka ee looga yeeray furimaha hore ee dagaalka inaysan lahayn waxa uu sheegay inaysan lahayn awood dagaal isla markaana waxa uu digniin u diray abaanduulaha ciidamada Israa'iil Eyal Zamir
qabiirka arrimaha militariga iyo istiraatiijiyadda Cornel Hatim Karim Al-Fallahi ayaa sheegay in ciidamada kaydka ee Israel ee loo yeeray si ay u bedelaan ciidamada joogtada ah ee dagaalka uga jira Gaza aysan lahayn awood dagaal taasi oo ka dhigaysa kuwo nugul oo si fudud loo jebin karo sida uu horeyba uga digay taliyaha guud ee ciidanka Israel Eyal Zamir. idaacadda ciidanka Israel ayaa waxay ku warantay in ku dhawaad ilaa 40,000 oo ciidamada kaydka ah lagu bedeli doono cutubiyada iyo saldhigyada qaybta ka ah howlgalka gaadiidka Gideon Labo si loo qabsado sida hadalka loo dhigay guud ahaan magaalada Gaza iyadoo lagu daray intaasina in kala bar ciidamadaasi lagu bedeli doono kuwa joogtada ah ee safafka hore ee dagaalka ku jira halka inta kalena ay bedeli doonaan kuwa xarumaha dhexe sirdoonka iyo ciidanka cirka. Cornel Al-Fallahi ayaa sharaxay in u yeerista ciidanka kaydka ay u ogolaan doonto fursad nasasho ciidamada joogtada ah kuwaasi oo la daalaa dhacayo culays weyn inay u heelanaadaan dagaalada dhowrka jiha ah iyo sidoo kale ay kaga jiraan Suuriya iyo dhinaca Lebanon marka laga reebo Gaza oo ciidanka Israel ay u arkaan inay tahay furinta ugu weyn ee dagaalka ay ku jiraan. ciidanka Israel ayaa isku dayay inay soo ururiyaan 5 guuto oo ka dagaal gasha Gaza si ay dhulka u maamulaan isla markaana u buuxiyaan baahida ka jirta jihooyinka kale sida ciidanka cirka kuwa sirdoonka iyo taageerada sahayda. ciidanka Israel waxa uu la daalaa dhacaya dhibaatooyin badan sida qalab yari iyo sidoo kale rasaasta oo tiro xadidan ah gaar ahaan ciidanka injineeriyadda oo baahi weyn qaba waxaana loo baahan yahay ciidamo shiishahana ah oo tababaran. Cornel Al-Fallahi waxa uu aaminsan yahay in ciidanka Israel uu u baahnaan doono waqti xitaa haddii uu awoodo inuu buuxiyo baahida jirta sababtoo ah ciidamada cusub ee la keenay waxay u baahan yihiin khibrad dagaal taasi oo ay adag tahay in lagu gaaro heerka hufnaanta ciidamada joogtada ah ee Israel. waxa uu sheegay qabiirku in taliyaha guud ee ciidanka Israel uu cadeeyay in ciidanka uu ku jiro dagaal uusan rabin sababtoo ah waxa uu og yahay dhibaatooyinka ciidanka uu ku sugan yahay oo ay ku jiraan awoodiisa oo liidata waxqabadkiisa dagaal oo hooseeya ciidamada isdilaya ee nafta isdhaafinaya oo tiradoodu ay korodhay iyo kuwa kaydka ah oo diidan amrada waajibaadka military. Abandula Zamir waxa uu og yahay in howlgalka military ee Gaza uu horseedi doono guuldarro weyn oo ciidankiisa soo wajahada sidaas darteedna waxa uu ka biyadiidayaa in si ballaaran ciidamada kaydka loogu yeero isaga oo door bidaya in si tartiib ah loo fuliyo howlgalada waxana uu sidoo kale ka soo horjeestay in Gaza la hoosgeeyo maamulka militariga sida uu sheegay Cornel Hatim Karim Al-Fallahi. waa hagaag daawadayaal waxay noo soo socotaa warbixinta ku aadan rabshadaha dhimashada dhaawaca iyo burburka sababay ee ruuxay dalka ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan caalamka maxay tahay sababta ka dambeysa bilowga rabshadahan intaynan u gelin xogtaasi bal aynu markan ku hakano qadar xayeysiina soo dhawaada mar kale daawadayaal wali waa hagaag markan aynu u talaabno sheekada ugu dambeysa ee barnaamijka caawa rabshado waaweyn oo sababay dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale burbur ayaa waxa ay ruuxeen dalka ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan ee caalamka. boqolaal arday ah ayaa waxay ka qayb galeen barnaamijyo ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee wadanka Indonesia iyagoo iska indha tiray digniino la xiriiray tallaabo adag oo dowladda oo ka dhan ahna kadib toddobaadkii rabshadaha dhiigga lahaa kuwaasi oo sababay in 8 qof ay dhintaan taasi oo noqotay rabshadii ugu xumeyd ee ka dhacda dalkan muddo 20 sano haatan laga joogo. Banaanbaxyadani ayaa soo bilaabmay maalintii Isniinta ee toddobaadkii hore kadib markii dadweynaha ay ogaadeen xogta mushaarka sare iyo gunada guryaha ee xildhibaanada baarlamaanka. waxaana banaanbaxyadu ay si dhaqso ah isugu sii bedeleen kuwa rabshado wata maalintii Khamiista markaasi oo muuqaalka isku soo baxani uu si weyn u faafay kaasi oo muujinayay gaari booliiska ah oo waxyeelo ay soo gaartay kadib markii mooto uu ku dhuftay darawalkii. dalabka dadweynaha waxa uu ahaa mid aad u fara badan laakiin banaanbaxyadu waxa ay bilaabmeen markii la shaaciyay in xildhibaanadu ay heli doonaan kordhinta gunada guryaha oo ka badan 10 jeer mushaarka ugu hooseeya ee caasimada dalkaasi ee Jakarta.
rabshaduhu waxa ay muujiyeen niyad jabka qotada dheer ee ka dhex jira nidaamka siyaasadeed ee dalka Indonesia, dhaqanka booliiska iyo mudnaanta qarashaadka dowladda. waxayna sidoo kale muhiim u yihiin dalka ugu dadka badan ee muslimiinta caalamka, halkaasi oo xasiloonida siyaasadeed loo arko mid muhiim u ah ammaanka iyo kobaca dhaqaalaha gobolkaasi oo dhan. xaaladani ayaa u taagan caqabada ugu weyn ee wajahayo madaxweyne Prabowo Subianto oo wajahayo ilaa iyo hadda hogaamintiisana waxaa hortaagan tartan dhab ah iyada oo banaanbaxyaduna ay ku sii fideen jasiiradda koonfur bariga Aasiya isla markaana ay soo jiiteen dareenka caalamka. maxaa ilaa hadda dhacay? kooxaha ardayda ayaa banaanbaxay waxa ay ka dhigeen magaalooyinka Jakarta, Yogyakarta, Bandung iyo sidoo kale magaalada kale ee Makassar lagu magacaabo, iyadoo ay jiraan ciidamo military oo badan iyo sidoo kale baaritaanada booliisku ay sameynayaan. magaalada Makassar ardaydu waxay isugu yimaadeen meel u dhow xarunta baarlamaanka oo la gubay toddobaadkii hore, waxaana gawaari ciidanka la dhoobay wadooyinka waaweyn ee Jakarta, halkaasi oo iskuuladu ay isku bedeleen waxbarashada fogaan aragga ah ee internetka, isla markaana shirkadaha ay shaqaalahooda ku amreen inay ku shaqeeyaan guryahooda iyagoo adeegsanaya adeega internetka si ay uga badbaadaan rabshadaha dibadbaxyadu ay wataan. booliisku waxay xaqiijiyeen in ka badan 1200 oo qof la xiray dalka oo dhan, in ka badan 700 oo qofna ay ku dhaawacmeen dibadbaxyada rabshadaha watay ee dalka ka dhacay, halka gudoomiyuhuna uu ku qiyaasay khasaaraha ka dhashay ee mudaharaadayaashaasi inuu gaarayo ku dhawaad 3.4 bilyan oo dhaqaale ah. waxaa dhacay rabshado iyo sidoo kale boob guryaha hogaamiyaasha siyaasadeed oo ay ku jiraan wasiirka maaliyadda ayaa la weeraray. xafiisyada dowladda ayaa iyaguna sidoo kale qaar ka mid la gubay sida lagu sheegay war rasmi ah oo la helay. Bandung oo ah magaalo weyn oo ku taala galbeedka jasiiradda Java ee dalka ayaa banaanbaxayaashu waxa ay dab qabadsiiyeen taayiro. magaalada Ternetna ayadana waxay ku taalaa waqooyi galbeed ee dalkaasi ayaa waxay wajahday rabshado waaweyn. booliisku waxay adeegsadeen gaaska dadka ka ilmeysiya si ay uga hortagaan dadweynaha inay xarumaha baarlamaanka ay soo gaaraan. mas-uuliyiintu waxay sheegeen in ugu yaraan 4 qof ay dhinteen dhamaadka toddobaadkii rabshadaha dadweynaha iyo dabka ee Makassar ka dhacay. si loo dejiyo carada dadweynaha, madaxweyne Subianto waxa uu ku dhawaaqay in la dhimayo gunada xildhibaanada, isla markaana waxa uu aad uga amaanay ciidamada ammaanka halgankooda, waxaana uu dallacsiiyay madaxweynuhu ilaa 40 sargaal oo booliiska ka tirsan kuwaasi oo ku dhaawacmay rabshadaha. madaxweyne Subianto oo ku booqday booliiska dhaawacmay caasimadda dalkaasi Jakarta ayaa dadweynaha waxa uu xasuusiyay in dibadbaxyadu ay yihiin in sharci ahaan loo ogolaaday in la soo afjaro saacadda markay tahay 6 galabnimo, taasi oo dhaliilayaashu ay u arkeen digniin halkii ay ka ahaan lahayd dabacsanaan oo muujiyo madaxweynaha maadaama go'aano xukuumaddiisu ay gaadhay ay dadku ka hor yimaadeen. kooxaha ardayda ahi waxa ay diideen jawaabta madaxweynaha ka timid iyagoo oo ku tilmaamay mid aan ku filnayn oo ka fog dalabka shacabka ay dalbanayaan, waxayna ardaydu u arkaan arrintu mid aan ahayn oo kaliya gunada dhaqaale balse sidoo kale ah dib u soo celinta kalsoonida hay'adaha dadweynaha iyo sidoo kale dalbashada dib u habeyn dhab ah oo lagu sameeyo ciidamada booliiska. dhanka kalena ururada bulshada rayidka ayaa dib u dhigay banaanbaxyadii ayagu ay samaysan lahaayeen iyaga oo ku sababeeyay xarig badan iyo sidoo kale jawi caburin ah oo dalka ka jira, kaasi oo ka dhigaya mudaharaadyada nabadda ahaa kuwo ku dhawaad aan macquul ahayn inay qabsoomaan. xagga caalamka dareenka kala kulmeen banaanbaxyadan waaweyn iyo mudaharaadyada ka dhacaya dalka Indonesia haddii aynu jaleecno, Shiinaha oo ah dal ganacsi ahaan xiriir weyn la leh Indonesia ayaa waxa uu muujiyay taageerada uu hayo awoodda Subianto waa madaxweynaha dalkaasi ee lagu maareynayo xiisadan ama xaaladan uu wadankan dhex dabaalanayo, taasi oo ka turjumaysa walwalka gobolka ee ku saabsan xasiloonida Indonesia. Indonesia oo ah dalka ugu weyn ee dimuqraadiyadda iyo dhaqaalaha ee koonfur bari Aasiya dhaca, xasiloonida gudaha ayaa waxay muhiim u tahay amniga guud ee gobolka iyo kororka dhaqaalaha ee qaaradda. madaxweynaha Indonesia hadda waxa uu wajahayaa marxalad muhiim ah oo ku aadan awoodiisa uu ku xallin karo xiisadan isagoo isu dheelitiraya dib u habeynta dhabta ah iyo sidoo kale baahida loo qabo in la soo celiyo nidaamkii dalka ka jiray. waxaana la leeyahay ma saameyn doonto oo kaliya madaxweynenimadiisa balse sidoo kale waxa ay go'aamin doontaa haddii Indonesia ay ka sii mid ahaanayso ama ay sii ahaanayso mid xoog xasiloon oo ka jiro
kuna leh gobolka sii kacaya ee xiisaduhu ay ka jiraan ee koonfur bari Aasiya. waa hagaag daawadayaal guud ahaan waxaa intaasi ku eeg barnaamijka aynu ku eegaynay xaaladihii ugu dambeeyay ee bariga dhexe iyo arrimaha